qarnigii 19aad Yurub waxaa ka dhacay kacdoonno waaweyn oo siyaasadeed gaar ahaan kacdoonkii la magac baxay Springtime of Nations. Kacdoonkaas ujeedkiisu waxa uu ahaa in ay helaan qoomiyadaha jamhuuriyado iyagoo u gaar ah. boqortooyooyinkii ay sida daran u saameysay kacdoonkaas waxaa ka mid ahaa boqortooyada Austria oo ahayd boqortooyo qadiimi ah oo ay ku hoos noolaayeen dadyo iyo qoomiyado kala duwan. qoomiyadaas waxa ay lahaayeen afaf, dhaqamo iyo rabitaano kala gedisan, taasoo dhalisay ismaandhaafyo iyo murno siyaasadeed oo joogto ah, iyadoo ku qasabtay Austria in ay baadigoobto xal siyaasadeed oo cusub. xalkaasi waxa uu horseed u noqday aas-aaska boqortooyada Austria-Hungary oo ka mid ahayd boqortooyooyinkii ugu awood badnaa taariikhda Yurub ilaa dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka. si aan u fahanno taariikhda Austria-Hungary waxa ay inooga baahan tahay laba qodob oo kala ah sooyaalkeedii hore iyo sida ay ku asaasantay. waxaana isku dayi doonnaa in aan si faahfaahsan u soo bandhigno insha Allah. ku soo dhawow. sooyaalkii hore xilligii Roomaanka dhulkan waxaa loo aqoon jiray Noricum iyo Pannonia gaar ahaan qarnigii koowaad ee miilaadiga. gobolka Noricum waxaa la isku dhihi jiray Austria iyo qaybo ka mid ah Slovenia, halka gobolka Pannonia loo aqoon jiray dhulalka Hungary iyo qaybo ka mid ah Slovakia. Roomaanku sidoo kale waxa ay dhiseen magaalooyin waaweyn sida Vindobona oo loo yaqaano Vienna iyo Aquincum oo loo yaqaano Budapest. kadib burburkii boqortooyada Roomaanka dhulkaan waxaa soo maray qoomiyado kala duwan oo ay ka mid yihiin Slaafka iyo Magyar ama sida loo yaqaano Majariyiin. Slaafku waxa ay soo degeen dhulkaan intii u dhaxaysay qarnigii 6aad ilaa qarnigii 7aad, waxayna aas-aaseen bulshooyin beeraley ah oo raadkooda uu ka muuqdo dhulkaan. Magyariinta iyaguna waxa ay soo degeen dhulkaan qarnigii 9aad, waana asalka dadka hadda loo yaqaano Hungariyiinta. xilligii boqortooyadii reer Habsburg waxa ay ahayd qoys boqortooyo oo hoos imaan jireen boqortooyooyin fara badan. qoyskan ayaana ku xoogaystay dhaxal iyo gur siyaasadeed oo dhex maray boqortooyinkii Yurub xilligaas ugu tunka weynaa, iyagoona maamuli jiray boqortooyada Austria oo ay hoos imaan jireen boqortooyooyin fara badan oo ka jira qaaradda Yurub sida Hungary, Spain, Jarmalka, Talyaaniga iyo boqortooyooyin kale oo yaryar. مثلا يوروب markaa waxa u xoog badan aali Habsburg. boqortooyinkii Habsburg waa maqasheen baan u maqlaynaya. waa boqortooyo cariiqa xeel dheer, boqortooyinkii ugu dheeraa ee Yurub ka taliya ka mid ah. asalkooduna waa Namsaawiyiin. Namsa waddankan Austria la yiraahday deganaan jireen. waxaa jira nin ka mid ahaa boqortooyada, waa ninka loo yaqaano Charles ama Carlos ama Karl ama Charles Khan. afafka reer Yurub qoloba si u qortaa. waa Charles the Fifth. Charles the Fifth wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo. kow nin aala Habsburg weeyaan boqortooyadii Namsuuleeyay. islaanu hooyo ay yiraahdaan way waalatay. majnuunatu qashtaala la yiraahdana habartii muslimiinta ka soo saartay Andalus ayaa dhashay. boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay oo markaa Spain boqortooyinka ugu waaweyn ahaa buu boqor u noqday. wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabbaha buu ka dhaxlay boqortooyadii Germany-na wuu dhaxlay. wuxuu kaloo farsamo ku soo helay inuu helo boqortooyadii la odhan jiray al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa. boobku nin quru u ogolaa inuu imbaraatoor magacaa sheegto, dabeetana waa ninka boobkuna taageerayo Talyaanigana caasimadda ka talinaya. waa nin markaa 4-5 waddan boqortooyooyinkood wada hoos yimaadaan. Charles-kii shanaad baa la yidhaahdaa. qoyskan waxa ay ahayd boqortooyadooda mid ka mid ah kuwii ugu awoodda weynaa taariikhda Yurub, waxayna talada boqortooyada hayeen laga soo bilaabo qarnigii 15aad ilaa qarnigii 20aad. qoyskan waxa ay door muhiim ah ka ciyaareen in ay aas-aasanto boqortooyadii Austria-Hungary oo dhinaca dhaqaalaha iyo awooddaba ka gaartay heerka ugu sareeya. sababihii ka dambeeyey in la aas-aaso boqortooyada Austria-Hungary waxa ay ahayd dhibaatooyin iyo kacdoono ka jiray gudaha boqortooyada Austria iyo guuldarooyin militari oo kaga yimid dagaalkii Prussia. boqortooyadii Austria waxaa kacdoonno xooggan ee qallaase ay kaga imaan jireen qoomiyadihii ugu tunka weynaa sida Jarmalka iyo Hungariyiinta, kuwaasoo mar kasta dalban jiray xuquuq dheeraad ah.
sanadkii 1866 waxaa dhacay dagaalkii Austro-Prussian War oo sidoo kale loo yaqaano magacyo fara badan sida dagaalkii 7 isbuuc, dagaalkii sokeeye ee Jarmalka iyo dagaalkii walaalaha. dagaalkaas waxa uu dhex maray boqortooyada Austria iyo Prussia oo xilligaas matalaysay gobollada Jarmalka, waxaana hogaaminayay boqor Wilhelmkii koowaad iyo Otto von Bismarck oo ahaa ra'iisul wasaarihii Prussia, kuwaas oo doonayay in ay mideeyaan dhammaan gobolladii ay deganaayeen dadkii Jarmalka ahaa. kadib markii labada dhinac ay isku qaadeen dagaal adag oo kii roon reer Kahawara ah, waxaana dagaalkaas ku guulaystay Prussia oo gacanta ku dhigta dhulal badan. guuldaradii ay kala kulantay boqortooyada Austria dagaalkan waxa ay sababtay in ay hoos u dhacdo saameynteedii siyaasadeed gaar ahaan gudaha Jarmalka, halka Prussia ay noqotay awoodda ugu xooggan. kadib dagaalkii ay la gashay Prussia oo ay ku guuldareysatay, Austria waxa ay wajahday culaysyo siyaasadeed iyo mid militari oo kaga imaanayay dhinacyo kala duwan. sidoo kale waxa ay cabsi ka qabtay Hungary in ay qaado waddo la mid ah tii Prussia, maadaama qoomiyadda Hungariyiintu ay raadinayeen xuquuq dheeraad ah. Hungariyiintu waxay ka ahaayeen aqlabiyadda ugu badan boqortooyada Austria marka laga soo tago Jarmalka. si ay u yareyso qataraha iyo walaacaas, Austria waxa ay go'aansatay in ay la midowdo Hungary. ujeeddada ugu weyn ee Austria waxa ay ahayd in ay hesho awood dheeraad ah oo ay iskaga difaacdo qataraha waaweyn ee kaga imaanayay boqortooyada Prussia iyo boqortooyada Ruushka. boqortooyada Ruushka waxa ay qorsheynaysay in ay isku ballaariso dhulalka Balqaanka, halkaas oo ay ku noolaayeen shucuubta Islaafka oo ah koox qowmiyadeed ballaaran oo ku nool bariga, bartamaha iyo waqooyiga Yurub. shucuubtan waxaan uga soo hadalnay muuqaalkeenii hore ee ku saabsanaa taariikhda Yugoslaafiya. haddii aadan weli daawanin, waxaan kuu soo dhigi doonaa linkigiisa kommentiga ugu horeeya. boqorkii Austria Franz Josephkii koowaad waxa uu heshiis siyaasadeed la galay Hungary. heshiiskaasoo lagu go'aamiyey in la sameeyo hal boqortooyo oo leh laba xukuumadood oo kala madax bannaan, laakiin hoos imaanaya boqorka Austria, isagoona maamulaya arrimaha dibadda, ciidanka iyo dhaqaalaha. soo ifbixiddii ilaa iyo dhicitaankii Austro-Hungary. boqortooyada Austro-Hungary waxaa la aasaasay 8 Diseembar 1867 heshiis la magac baxay Oskalash, kadib markii Hungary ay dalbatay madax bannaani dheeraad ah. waxayna Austria iyo Hungary ay noqdeen hal boqortooyo, laakiin leh laba maamul oo kala madax bannaan oo wadaaga boqorka, arrimaha dibadda, difaaca iyo dhaqaalaha, iyadoo labaduba ay lahaayeen baarlamaano iyo xukuumado u gaar ah. kadib markii ay midoobeen Austria iyo Hungary, labada dhinacba waxa ay heleen faa'iidooyin la taaban karo oo dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo militariga ah. si kastaba ahaatee, faa'iidooyinkan way ku kala duwanaayeen marka loo eego labada dal. faa'iidooyinka dhaqaale: midowgu waxa uu keenay fursado dhaqaale oo ballaaran, gaar ahaan dhinaca warshadaha. Austria waxa ay ka faa'iidaysatay khayraadka hodanka ah ee Hungary, gaar ahaan beeraha iyo alaabaha dabiiciga ah. labada dal waxa ay abuureen nidaam ganacsi oo ku dhisan ganacsiga xorta ah. dhanka Hungary, midowgu waxa uu horseeday horumar weyn oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah, waxaana la dhisay waddooyin tareen, waxaa la horumariyey xarumaha warshadaha, taasoo gacan ka geysatay kororka dhaqaalaha Hungary. magaalo madaxda Budapest waxa ay noqotay magaalo heer Yurub ah oo si xooli u kobcaysa. faa'iidooyinka militari: Austria waxa ay kordhisay awooddeedii militari iyada oo ka faa'iidaysanaysa midowga, taasoo fursad u siisay in ay xoojiso saamayntii ay ku lahayd guud ahaan Yurub. dhanka talada boqortooyada, inkasta oo Hungary ay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah boqortooyada Austro-Hungary, laakiin talada ugu dambaysa waxaa gacanta ku hayay boqorada Austria, gaar ahaan qoyska caanka ah ee Habsburg. tani waxa ay ka dhigtay Hungary in ay qaadato kaalinta labaad ee awoodda maamulka boqortooyada. boqortooyada Austro-Hungary waxa ay ka koobneed qowmiyado badan oo ay ka mid yihiin Jarmal, Hungariyiin, Czech, Slovak, Polish, Slovene, Croat, Serbiyiin iyo kuwo kale. tani waxa ay keentay caqabado dhinaca isku duubnaanta iyo maamulka ah, sababo la xiriira kala duwanaanshaha luqadaha iyo dhaqamada. dilkii Faransa Ferdinand waxa ay ahayd dhacdo taariikhi ah oo horseeday dagaalkii koowaad ee adduunka. Faransa Ferdinand waxa uu ahaa dhaxal sugaha taajka boqortooyada Austro-Hungary, waxa uuna si weyn uga duwanaa siyaasiyiinta caadiga ah ee boqortooyada, isagoona lahaa aragti ah in isbeddello waaweyn lagu sameeyo habka maamulka boqortooyada si loo hagaajiyo xiriirka qowmiyadaha kala duwan ee ku hoos noolaa boqortooyada. dilka waxa uu ka dhacay magaalada Sarajevo,
oo ahayd magaalada ugu weyn ee Bosnia xilligii dilka uu dhacayay gobolkaas waxaa ka jiray kacdoono fara badan gaar ahaan Serbiyaanka oo rabay in ay qayb ka noqdaan boqortooyadii Serbiya Serbiyaanka sidoo kale waxa ay rabeen in ay mideeyaan dhammaan qowmiyadaha Islaamka ee ku noolaa bariga Yurub Gavrilo oo ahaa xubin ka tirsan urur qarsoon oo Serbiyaan ah oo la yiraahdo gacanta madow ayaa dilay Faransa Ferdinand iyo xaaskiisa Sofia dilkaas oo horseeday in Austria-Hungary ay uga jawaabto dagaal iyadoo uu arkiisay Serbiya in ay mas'uul ka tahay shirqoolka taasoo keentay in dagaalka uu si degdeg ah u fido Serbiya waxa ay heshay taageero weyn oo kaga timid boqortooyadii Ruushka taasoo u aragtay in ay muhiim tahay in la difaaco qowmiyadaha Islaamka ee ka soo horjeeda Austria-Hungary dagaalka waxa uu si degdeg ah isugu bedelay dagaal caalami ah Jarmalka waxa uu garab istaagay Austria-Hungary iyadoona Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska ay la safteen Ruushka iyo Serbiya isbahaysiyadan Yurub waxa ay keeneen in dagaalkii koowaad ee adduunka uu qarxo kaasoo sababay dhimashada malaayiin askar iyo shacab ah iyo burbur weyn oo soo gaaray inta badan qaaradda Yurub ugu dambeyn boqortooyadii Austria-Hungary waxa ay burburtay sanadkii 1918 kadib guuldarooyin militari oo ay kala kulantay dagaalkii koowaad ee adduunka 21 Oktoobar 1918 Austria waxa ay ku dhawaaqday in ay ka baxday boqortooyada Austria-Hungary iyadoona madaxbannaanideedii ku dhawaaqday 28 Oktoobar 1918 waxa sidoo kale madaxbannaanideedii heshay Czechoslovakia sidoo kale isla maalintaasna Galicia waxa ay ku biirtay Poland 29 Oktoobar 1918 Yugoslavia ayaa ku dhawaaqday madaxbannaanideeda 1 November 1918 Hungary iyaduna sidoo kale 1 December 1918 gobolada Transylvania iyo Banat waxa ay ku biireen Romania ugu dambeyn koonfurta Tyrol iyo Trentino iyaguna waxa ay ku biireen Talyaaniga intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fadlan like noo saar sidoo kale subscribe oo nala wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iideystaan intaan muuqaalka mid la kulmi doono